shirkadda baahinta internetka ee Somcable oo ka mid ah shirkadaha bixiya internetka ee Somaliland isla markaasna shirkad ku cusub Somaliland oo muddooyinkii ugu dambeysay qaab xawliya uga soconaysay gudaha dalka ayaan ku booqanay xafiiskooda oo ku horgaleynaa bal isbeddelka internet ee ay ku soo kordhiyeen dalka ana xilligan booqanay ka socotay hawlo kala gedisan oo ay u qabanayaan bulshada isticmaasho adeega ay bixiyaan waxaan ugu horeyn wax ka weydiinay balqaabka ay shirkadda Somcable u shaqeyso iyo adeegyada ay bulshada gaarsiiso madaxa daryeelka macaamiisha Khalid Cabdiraxmaan Maal waad mahadsantiin waan idinka mahadnaqayaa booqashada aad maanta nagu soo sameyseen ee xafiiskayga ku timaadeen adeegyada aan shirkad ahaan bixino waxa weeye adeega fiberka oo aan ugu talagalnay businessyada dadka ardayda ah oo ugu talagalnay ganacsatada oo ugu talagalnay hay'adaha oo ugu talagalnay guryaha adeegaas oo nooc badan leh iyaga oo 4G oo kuwii la qaadanayay gacanta lagu qaadanayay portable-ka ahaa iyo iyaga oo ah kuwii guryaha lagu xidhanayay wireless-ka intaba waanu haynaa oo aanu ku bixinay adeegyadeeda marka adeegyadeedu saas weey ciladaha inta badan soo food saara bulshada isticmaasho adeega aad bixisaan qaab nooceeya ayaad ku xalisaan horta bulshadu adeeg fara badan buu qabtaayo waxa kaan oran karno adeegan fiberku waxa ku jira adeegyada ugu cilada yar leh haddana waxii waa technology oo markasta cilad laga waayi maayo haddii ay cilad dhacdo ama ay timaado in adeegayga uu ka go'o qofka customer-ka ah waxaan leenahay meel xarun ah ama call center ah oo lagala soo xiriiro dadka oo shirkadda iyadu lagala soo xiriiro oo 818 oo 3 number oo gaaban ah oo lagu soo hadlo oo diyaar u ah dadka inay u adeegaan oo ay u soo gudbin karaan cabashadooda halkaana looga xaliyo ilaa qofka internetkiisa uu xalismayo halka looga shaqeeyo oo wixii kaga yimaada dhiba looga qabto oo looga fududeeyo ayaan leenahay oo min 7 subaxnimo ilaa 12 habeenimo shaqeeya oo la helayo oo anytime ganacsiga la soo garaaci karo inkastoo uu sanado badan jiray adeega internetku ee Somaliland ka howlgala markii aad ku soo biirteen saaxadda iyo suuqyada internetka qaybiye ee Somaliland isbedel nooceeya ayaad ka sameyseen dhinaca internetka niyo wallahi waxaan oran karnaa wuxuu ka bedelay wax weyn buu waddanka ka bedelay haday noqoto dhinaca waxbarashada haday noqoto caafimaadka haday noqoto ganacsiga imika tusaale ahaan oo kale ilaa saxaafadda idinkaaba horta ka marxaatiya oo imika waxa weeyaan saxaafaddu birigii hore waxa la sameyn jiray markay war gudbinayaan ama live galayaan may dhici jirin way adkaan jirtay hadda laakiin waad aragtaan meel kasta in live laga soo galayo oo si toos ah loo tabinayo waxa dhacdada marka taagan ee meeshaasi ka socotay ka dhacaysa waxa kale oo sahashay in lagu xidhmo oo dibadihii qoloyinka ganacsatadu ay saambaladoodii ama sumadihii ay dadka shirkadaha dibadda ka soo qaadanayeen ama ay u gudbinayeen in si sahal ah ay u dirtaan aanay magaranaysaa xilli kasta joogaan iyagoon ka warwareyn internetka miyuu ka go'ay miyuu xun yahay miyuu shaqayn doonaa isagoon marnaba ka warwareyn imika caafimaadkii oo kale oo waxa dhacda inta badan imika dhakhtarka weyn oo kale waxay ku sameeyaan qalin oo waxay isku xidhmaan shirkada marka dhakhaatiir kale oo caalami iyo dibadda iyagoo internetka adeegsanaya marka xaqii waxbarashada oo kale online baa lagu dhigtaayo jaamacadaha badankeygiiba ku jiraayo online baa lagu gudbiyaa marka intaasoo siyaabood buu internetkii waddanka wax uga bedelay oo waddanka halkii hore uu joogay ayuu hore uga dhaqaajiyay marka taasina waa wax la taaban karo oo aan runtii ku faanayno sanadkan cusub ee bilowga ah 2018 muxuu yahay qorshaha u yaala shirkadda baahinta internetka ee Somcable wijiran waxaan sameeynaa imka fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u sameeynay dhammaan adeegii guryaha la gelinayay waxa ugu talagalay inaan ka daynay dhammaan kharashkii loogu soo gelinayay oo u bilaash yahay kaliya ay la baxayaan oo lacagta bisha
kharashkii soo gelinta oo dhan sanadka waa laga inta sanadka cusub dartii waa laga dhaafay kaliya waxa loo sameeyaa in kharashka bisha iska bixiyaan ay sana ku qaataan waxa kale oo raaca ardayda oo iyaguna u sameeynay discount gooniya oo qiimo dhimis u sameeynay oo aan ugu talagalnay iyagana maadaama ay yihiin dadka wax baranaya oo iyagii u baahan in wax lagu soo celiyo iyagana waxaan u sameeynay qiimo dhimis weyn oo ay ka heli karaan dhammaan branchadayada waxa looga baahan yahay in ID card-kooda soo qaataan meesha ay wax ka bartaan ama jaamacad ha noqoto ama iskuul ha noqoto ay la tagaan xarumaha iyaga marka adeeg gooni oo ay dadka kale aan heli karin bay helayaan waxa kale oo aan soo sameeynay adeeg hawada ku jira oo aan laga heli karo suuqa gudihiisa iyo dhammaan jaamacadaha oo u baahnayn inaad qalab qaadato laakiin se hawada markaad furto ay kuu soo baxayso oo aad si fudud u geli karto oo aad u isticmaali karto adeegana waa soo kordhinay oo ku diyaar iyadoo aynu wada ogsoonahay in macaamiil aad u fara badan ay ku xidhan tahay shirkadda baahinta internetka ee Som Cable isla markaasna sanadihii u dambeysay ay hanatay qalbiyada iyo qulubta shacabka reer Soomaaliland ku dhaqan kuwaas oo ku qancay adeegyada kala gedisan ee internetka ay soo bandhigtay iyo sidoo kale xawaaraha sareeya ee adeegga internetka ee shirkadaasi ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa bulshada isticmaasha adeeggaasi waa kan mar kale Khalid Cabdiraxmaan Maal madaxa daryeelka macaamiisha oo su'aashaasi ka jawaabaya runtii waxaan leeyahay macaamiisha waxaan leeyahay waxa weeye adeeg ay shirkadu idin haysaa aad hore uga barateen sanadkana ay hore idinku sii marisay runtii aad kaga qabeeli doontaan internetka dhamaantiin marka mar walba diyaar baan idin lanahay waxaan leenahay ku xidhnaada shirkadda isgaarsiinteena gayga Somaliland guulay u horseeday badan